sanad kasta jaamacadda Johannesburg ama University of Johannesburg waxaa lagu qabtaa bandhig caalami ah oo dhaqamada iyo hidaha oo dalal badan oo adduunka ay ka soo qayb galaan iyadoo oo markii ugu horeysay sanadkan uu ka qayb galay dalka Soomaaliya waxaa dalka Soomaaliya matalayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku dhaqan Johannesburg iyada oo abaabulka iyo isku dubaridka barnaamijka uu lahaa ururka Helpsom ee ka dhisan dalkani waxayna ahayd dhacdadii ugu xiisaha badneed ee inta la xasuusto soo martay jadwal taariikheedka sanadkani iyo waliba sanadihii la soo dhaafay sida aad muuqaalka ku aragtaan dhalinyaro gabdho iyo wiilal isugu jira oo xiran dareeska hidaha iyo dhaqanka Soomaaliga funaanado lagu soo xardhay calanka Soomaaliya ayaa socod xaraga ah ku soo galay masraxa iyaga oo muujiyay xarakaad dadka soo jiidanaya mar kaliya ayay sacab jaan iyo qoob cirka isla qabsatay qaylo ka soo yeereysay kumanaan dad ah oo u soo daawasho tagay mehrajaankani caalamiga ah sida uu telefishinka Universal u sheegay Cabdikaafi Liibaan oo ah agaasimaha Helpsom fariinta ugu weyn ee la dirayay ayaa ahayd in dadka Koonfur Afrika iyo adduunka intiisa kala la tuso in ay jirto Soomaali aan ahayn tan tuulooyinka lagu dilo lagu gubo laguna boobo balse ay jirto Soomaali qayb ka ah bahweynta adduunka haysatana dhaqan gashi cunto dhadhan iyo af iyo aqoon ay la wadaagi karto adduunka intiisa kale waxa ay kooxaha Soomaalida soo bandhigeen heeso waxaana dadka aad u soo jiitay heestii uu qaaday fanaankii Keenan ee koobka kubadda cagta adduunka laga qaaday dalkani lagu qabtay Koonfur Afrika markii uu bandhiga soo dhamaaday dadka waxa ay safaf dhaadheer u galeen cuntadii Soomaalida ay karisay taasi oo ka dhigan in xagga dhadhanka iyo dheeftaba ay Soomaalida calanka u siday raashinkii la soo bandhigay waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay bandhiga oo nala hadlay dawlado badan ilaa iyo 34 dawladood ayaa jaamacadda maanta ka qalin jabiyay dadka Soomaaliya meesha ku soo bandhigeen dukaamada iyo qaxwo ayaa gacan laga siinaa iyo ganacsiga Soomaaliyeed waxaan isku taagaraynay dhaqankeena inaan caruurteena inaan dhaqanka ka dhigo asaas soo daro waliba ee qaasahan ibrahim qaxwo dalgalay alaabtan hadda waliba meesha waa ugu yareeyeen haddii meelkood nala siiyo inteeda ka badatan alulkiya maqan jibaartiya maqan gambarti jiifki wixii dhan maqan hada wali leesma gaari maanta oo kale maxay ku beegan tahay لكن ما أنت يسوي من صوت الكلام وهاي ماركتين وشيء نقد هذا فيديو هذا هاي وشيء ماركتين كلتشر كذا أحمد الشيخ بشير ساحن صحو Universal TV Johannesburg